xaga juglayn naga soo gaadhay ila kala gedisan oo qaar ka mid ah waliba xarakada shabaab gudaheeda ay ka imaanayso taasoo tilmaamaysa raggii culimada ahaa ee hawsha ka hadlay in ay ku talagashan yihiin inay laayaan anigu aan ka mid ahay Sheekh Shibla ka mid yahay culimo kale ka mid yihiin arintaasi waan soo gaadhay ila kala gedisan bayna naga soo gaadhay waliba qaar ka mid ah ilaahaasi saan tilmaamay waa xarakada dhexdeeda ay ka imaanaysaa marka waa wax jira wax runtii qariibana ma aha oo waxaan isleeyahay dhowr arrimoodba marka la fiiriyo waa wax suroobi kara aad u suroobi kara waa midda koobaad ee wadaadadii hawlaha noocan oo kala u fatwoon jiray inay dadka dhiigooda galaan oo daadiyaan mar hore ay u fatwoodeen anagii culimada nala midka inaan dhiiganagu xalaal yahay waa midda labaad culimadii ay Soomaaliya ku laayeen oo meelo badan ku laayeen iyaduna wax weeyaan waa tusaale hore waa midda saddexaad waxa weey waxa iska fudud ninkii yiraahda war waxani waa khaldan yahay shariicada ma waafaqsana intaasi in laga dhigo inay dambi tahay oo gaala raacnimo tahay oo jihaadkii laga hor yimid ay tahay oo bitaali ruuxa dhiigiisa in lagu daadiyo waxaan ku gabagabeynayaa ama kaga baxaya qodobkaas waxa runtii miisaal aan cidna ka shakin karin ku filan raggii saaxiibadii ahaa ee ururka raggii ugu sareeyay madaxda ka ahaa oo isqoonsadeen oo iskhilaafeen oo ruuxani ma saxsana waa khaldan yahay sidan aad wadamo fiicna inta ay isku qoonsadeen ninka dhiigoodii xalaashaday ee laayay waxaan u maleynayaa inuusan nin kale u daahaynin marka intaas oo dhan markaan isku ururiyo waxaan isleeyahay hanjabaadani waa wax la rumaysan karo sheekh ayaan waxaan wax ka weydiinay sida uu ku helay hanjabaadaha dilalka ah ee uga imaanaya ururka al-shabaab iyo hadii ay jiraan dad uu garanayo arintaasi loo soo mariyay jidka ay hadda nagu soo gaadhay macluumadaasi runtii inayna maslaxa ku jirin baan u maleynayaa sheegideeda laakiin waa macluumad rasmi ah noo soo gaadhay ilaahay naga soo gaadhayna waa ila kala gedisan in badanna Soomaaliya joogan qaar ka midana waan ku sheegay inay xarakada gudahooda tahay oo runtii wax way soo sheegay talagalka ay ku talagashan yihiin macluumaadkana soo gaadhay qaar ka mid ah waxay tilmaamayaan xataa ragga operationka loogu talagalay inay nala joogan ay Kenya nala joogan cida soo sheegaysa hebel iyo hebel ma dhihi karto laakiin min xaythu mabda ahaan bay garan kartaa ama ay fahmi kartaa in hawshu ay diyaarsan tahay macluumaadka marka isagu uu hayo laakiin halkaas ay ahayd iyo jidkaas ay ahayd iyo waxoogaa inaysan munaasib ahayn baan u maleynayaa taqriiban sheekh ayaa sidoo kale waxaan wax ka weydiinay ujeedada ay ka leeyihiin ururka al-shabaab dilalka hanjabaadaha ay u geysanayaan qaar ka mid ah kuwa ugu caansan culimada Soomaaliyeed ee waxa ay ka yeelayaan culimada khatartan cusub ee soo food saartay wallahi horta yaani waxa nagaga aadani ujeedada la leeyahay culimada la leynayo iyo muxuu ahaay dadka akhyaarta iyo ummadda indheer garadkeeda iyo wax garadkeeda la leynayo ujeeday leedahay ujeedaduna waxa weeye in dadka la aamusiyo markay ugu yar tahay la baqdin geliyo la aamusiyo waxaan leenahay horta insha Allah ta'ala san rajaynayno mashruuca ah inaan baraarujino wixii khalad ah ummadda uga digno wixii shaati diineed qaban diinta kamid ahayn waa sii wadaynaa insha Allah ta'ala oo taas horta joojin mayno naftana de waqti bay leedahay oo kana soo hormari mayso kana dib dhici mayso takaleeteen doonaya inaan ku daraa waxay tahay oo aan inta raaciyo muxuu ahaayay wixii anagu dad iska shibilaan nahay shacab baan nahay meeshaan joognaa wixii runtii wax weeyaan culimadii hore iyo ambiyadii iyo akhyaartii iyo ninkii jidkooda maro oo sidaas muxuu ahaay lagu dilo isaga dantiisa iyo maslaxadiisa iyo shahaadadiisa weey oo san filay muxuu ahaay intii sida lagu dilayna muxuu ahaay waxaan u maleynayaa inay maanta san u rajaynaynayo ka fiican yihiin ninkii dilay baa maanta dhiban kan ku tala gashanna inta badan isaga bay dhibaatadu ku soo noqonaysaa anaga laakiin waxa naga go'an nin hanjabay iyo nin wax dilay iyo nin muxuu ahaay wax ku tala gashanba mashruuca aan umada u hayno insha Allah ta'ala inaan u sii hayn doono biidin Allah tabaaraka wa ta'ala hanjabaadahan iyo waxyaabahan
aanan insha allahu tacaala aynan mashruuc annagan aynan carqalad gelin doonin insha allahu tacaala. ugu dambeyntii ayaan waxaan weydiinay sheekha waxa uu ugu baaqayay dhalinyarada la marin habaabiyey ee ka barbar dagaalama ururka al-shabaab. waxaan dhihi lahaa da'yarta muslimiinta ah ee lulugoynayo naftoodana la khatar gelinayo ummadoodii iyo diintoodii iyo dalkoodiina dhibaatada u geysanaya isla markaana iyagu iska qalbi fiican oo janno raadinaya waxaan dhihi lahaa in ay aakhiradoodii iyo adduunkooda ilaashadaan oo aynan waxyaalaha noocaas oo kale ku kadsoomin oo aynan ku khaldamin. waxaa runtii aad iyo aad wax la yaab la u ah dhalinyaradaasi ama isqarxinaya ama dadka laynaya ama waa laba nin mid weeye. nin dhallinyara oo aan diinta wax badan ka ogeynoo iska da'yar oo waayo aragnimona aan lahayn aqoon diineedna aan lahaynoo filimo iyo wax inta loo shiday la lugooyey. ninka labaadna waa nin mar dhow soo islaamay oo islaamnimadiisuba iska cusub tahay oo isagana inta la xamaas geliyey sidan loo tusay in janno iyo muxuu ahaaye khayr lagu helayo. sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa naftu waa qaali, meeshaad u socotaanna waa aakharo iyo ilaahay la kulankiisa tabaaraka wa tacaala, janno iyo naar, qabri iyo xaaladihiisa, muxuu aha qiyaamo iyo ahwaasheeda, meel qaylaba ka jirto oo laga qaylyahayo oo inaad naftiinna ku bixisaan isla markiibana ilaahay la kulantaan iyo aakhiradiinnii. anu waxaan dhihi lahaa meelaha noocaas oo kalea meeshii lagu khamaari lahaa ma ah, wax lagu khamaaro naftaa ugu dhib badan. marka waxaan dhihi lahaa ka fiirsada oo muxuu ahaayey diintiinna barta oo yaan laydin lugoynin oo culimmada diinta taqaanee ilaahay ka cabsanaysa aqoonta diinta ka qaata oo iska hubiya waxa aad ku tillaabsanaysaan oo dhiiggan iyo burburkan iyo diinla'aantan iyo kharibkani marnaba diin calaaqa lama leh, sinamana uma noqon karo wax ilaahay janno lagaga helo ama cadaab lagaga badbaado ma noqon karo. waxaan dhihi lahaa marka naftiinna badbaadiya ilaahayna ka baqa tabaaraka wa tacaala. qoladan maartay ubaarayaasha ii yeedho waxay idhaahdeen bal aaduna waxan iyo waxaan ubaad sheegaysaa ee ka waran xaggaad ka keentaa war 8 beebar baan u buuxiyey 8 beebar maxaa tiraa warqadan maxaa tirahdaan afarta koone ee fork soma tiraan 8 baan buuxiyey markaasay gacantaasi daashay baadhaha ugu sarreeya meesha jooga booha iyo ninka taliska baadhayaasha oo dhan haystay labadaasaa meel ila galay 3 saacadood ka badan bay wax iga qorayeen macluumaad ayaan u sheegay ay idhaahdeen inteeda badan ma ogin bay idhaahdeen inay waddanka ka jirto bayanadiina dawaan dul dhigay wax wadacad baan u sheegay qaarkood waxaan markhaati geliyay iyaga qaybo ka mid aan soo gaadhsiiyey mar hore kaanna waxay moodeen inaan shaqaalo leeyahay waxaan ku dhihi waxaa idiin shaqeeya afraad dawladda u tira kooban waayo dhaweytoon soo dhaafnay dadkeennu waxay u qaybsanaayeen mid samaynaya